moogtahay inay ku wan yihiin 3 shay oo ku cadeynaya in Japan ay ku nooshay adduun kale. kow McDonald's gudaha dalka Japan marka la joogo cafeteriaonka loo yaqaan McDonald'sku waa kuwa ka duwan kuwa kale ee ku yaala adduunka kale waxaana ku yaala baaskilada jimicsi marka aad marka hore aragto waxaad u malaynaysaa in loo dhigay si macaamiisha ay u gubaan kalariska laakiin taasi sax maaha daawade baaskiladan waxaa loogu talagalay in dadku ay ku dabaystaan taleefanadooda iyagoo iska cuntaynaya soolaya maaha daawade. 2 metro train trainada nooca loo yaqaan metroga marka la joogo wadanka Japan waxay leeyihiin kursi gaar ah oo leh midabka pinkiga loo yaqaano waxaana si gaar loogu qoondeeyay oo ay khaas u yihiin haweenka uur kale oo kaliya qof kalena ma fadhiisan karo kursigaas. 3 robotka cuntada gudaha dalka Japan markaad cunto dalbato qof bani aadam kuma keeni doono sida badi dhacda adduunka kale balse taas bedelkeeda cuntadaadii waxaa lagugu soo ridi doonaa robot casri ah oo si toos ah kugu keeni doona gurigaaga. robotkani wuxuu leeyahay nidaam ammaan ah oo hubinaya in uu dalabkaagu si sax ah kuugu yimaado adiguna aad tahay qofkii ku habboona ee dalbaday adigoo si degdeg ku helay adeegaagii. soolaya maaha daawade. haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo 3 shay aan soo sheegay midkii ayaa xoog kaaga yaabiyay qaybta commentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saaranna aad subscribe dhaado.